السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داوديال إذا هانتم بملك استوى نجد ونيسان كسر دواد البرنامج كبندقة تيفيق يونيفرسال قيبتي سمجالة برعاء مانتا وحن برنامج كان كسر قادمينا isku daweynta quraanka kariimka iyo sunnaha nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa ku yaala magaalada Burco maraakiis badan oo quraanka kariimka iyo sunnaha nabiga dadka lagu daweeyo waxa maanta barnaamijka marti noogu ah oo dhinacayga fadhiya Sheekh Jaamac Xuseen oo ku magac dheer Jaamac Wadaad soo dhaw Jaamac marka hore barnaamijka aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa waa dhaw fursada ay siiseen qaaliga TV-ga Universal aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa Sheekh Jaamac waxaynu ognahay ummad islaam baynu nahay kista ilaajiyada waxa loo yaqaan quraanka iyo sunnaha nabiga lagu daweeyo kaleey salaatu wasalaam waxay ahaayeen xilliyadii hore gooba ay dadku aad u aaminsan yihiin maadaama oo quraankii lagu daweeyay laakiin waxaad moodaa taasi inay maanta jirto dhaliil badan oo bulshada ay ku tilmaamayso inay noqdeen goobo ganacsi sida darteedna ay ku eedeeyaan culimada ama ku dhaliilaan inay wax badan bedeleen qaabkii quraanka ummadda loogu daweyn jiray iyo sunnihii nabiga adigu maraakiista mid kamid ah baad haysataa bulshada sida aaminsan maxaad ku qancinaysaa waa su'aal aad iyo aad waxa weeyaan wanaagsan ummaddu waxa weeyaan sideen ogsoonay ummadeenu waa ummad qaali ah oo waxa weeyaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa aaminsan taas ayaan anaguna waxa weeyaan ugu adeegnaa oo waxa weeye ugu shaqeynaa ummadda waxaan waxa weeye ku qancinayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa hortay waa aqlad dawaa weeyaan waa wax la isku daweeyo waxa shayga ugu qaalisan ee waxa weeye ugu muhiimada badan weey maraakiis badan baa waxa weeye wadanka ka jira hadii aan ku soo dhawaado anigu markaas kan aan ka hawl galo waxa weeyaan qofka waxaan ka qaadnaa $10 oo qura laga qaada $10 marka laga qaado waxa weeyaan 15 casho ayaa lagu quraan saaraa oo waxa weeyaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala kalaamkiisa lagu akhriyaa xanuun kasto waxa weeye qofku haya intuu doonaba hal leegaada Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa kaga caafiyaa dad badanna waxa weeye Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa ku daweeyay oo sabab uga dhigay marka dadka anagu sida ayaan ugu dhimirsanahay dawadana waxa weeyaan waxyaabo yar oo kooban $35 ayaa u sareeya wixii kalena waa wax ka hooseeya marka ummadda waxaan leenahay insha Allah inay ku soo dhawaadaan xarumaha waxa weeyaan quraankana ummadda kale iyo culimada kale waxaan ugu baaqaya war ummadda waxa weeyaan inaan lagu kululaynin oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa aan laga eriyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka naxariis buu ku tilmaamay naxariistii uu quraanku lahaa waxa leenooga baahan yahay inaynu soo celino oo ummadda naxariista iyo wanaagga uu quraanku leeyahay aynu u muujino adduunkooda iyo jeebkooda waxa ku jiraana aanay inoo muuqanin si daacadana waxa weeyaan inaynu ugu adeegno taas ayaan waxa weeye culimadana waxa weeyaan insha Allah waan fari lahaa aniguna insha Allah aan diyaar ugu ahay ummadda inaan waxa weeye si daacada ugu adeego waxa weeyaan waxa kirooyinka lagu bixinayo mooyaan aan wax kale ku weydiisanin goobaha quraanka kariimka iyo sunnaha nabiga ee bulshada lagu daweeyo aad bay uga tiro badan yihiin xilliyadii hore si ahaan jiray maxaa sababay bismillah arinta kulli sababo dhowr ayaa sababay hortay waxa weeyaan ummadda waxa weeye xanuunkii uu ku soo batay arintana waxaad moodaa in laga dhigtay waxa weeyaan shay xirfada oo waxa weeyaan lagu shaqeysto oo ummadda waxa weeyaan hanti waxa weeyaan lagaga qaato dadkuna waxa weeyaan waa isku jiraan oo xataa waxa ku jira kuwa waxa weeyaan khuraafaadlayaal oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa aan sal ku lahayn waxa ku jira kuwa waxa weeyaan aan aqoon badan oo waxa weeyaan ku filan aan hawshan u lahayn dadkii xanuunsanaya oo la arkay baahidoodu inay waxa weeyaan badan tahay marka sababaha ayaa keenay culimada aqoonta u leh inay quraanka wax ku daweeyaan iyo sunnaha nabiga iyo cashaabta ama dhirta dabiiciga ah ma la oran karaa iyaga ayaan bulshada wax badan u sheegin ama tilmaam badan siinin oo ka gaabiyo doorka ay lahaayeen bismillah kulli arintaas walaal waa arin jirta weeyaan ummadda waxa weeyaan culimadeedu waxay xaq u leeyihiin u tilmaamaan wixii waxa weeyaan wax tara ee qofka caafimaadkiisana faa'iido u keenaya diinkiisana waxa weeyaan wax dhibaato aan ku keenaynin caafimaadkiisana waxa weeyaan dib ku keenayn wuxuu u siyaadiyo mooyaane marka arinta waxaan aran karaa culimadu waxa weeye way ka gaabisay dawrkii ay ku lahayd dadka waxa weeye mas'uuliyiinta laftoodu waxa taa dhaliil bay ku leeyihiin ummaduna dhaliil bay ku leedahay saddexda dhaliilood baa jira ta waxa weeyaan culimadu waxay xaq u leeyihiin ummadda wax la hubiyay oo waxa weeye la xaqiijiyay oo culimo la hubo inay waxa weeyaan Ilaahay ka dhigayo ay noqdaan ummadana waxa weeyaan wax kasta oo loo furo inaan iyaguna iskaga yaacin ee waxa weeyaan iska hubiyaan qofkan bildiintiisa iyo aqeedadiisa inay hubiyaan dhaqaalahooda laftiisa ay u turaan waxa jira xarumo badan oo waxa weeye dadka wax yar laga qaado oo taydana ay kamid tahay sida aan hore u soo sheegayna qofka $10 oo qura laga qaado 15 cashana waxa weeye Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa la saaro dawladda lafteedu waxay xaq u leedahay inay baadho oo waxa weeyaan ay xaqiijiyaan dadka waxa weeyaan arintan cilmiga u leh iyo waxa weeyaan dadka ummadda u soo shaqo tagay ee baadhanaya waxyaabo khiyaali bay u akhriyayaan oo ay ku maaragtay qofkii ku didsanayaan oo ay leeyihiin waxa weeyaan waad bogsanaysaa markiiba wad caafimaadaysaa anigu xanuunka waan aqaan marka saa ku arkaan garanaya
markaa kadib waxa weeyaan hanti badan qofkii lagula shuruutomayo inuu bixiyo qofkiina hadha uu kuu sheegayo wax isbedela inaanu helin kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala wax lagu qaato oo hortay wax lagu bixiyo marka hore waa shay sharciyana nabigana waxa weeye calayhi salaatu wasalaam way ka sugnaatay niman saxaabo ah oo waxa weeyaan dilaahay ka dhigayo qolo martiyay beetana martidii ay ku hoyin waayeen kadib waxa weeyaan ninkii madaxda u ahaa la qaniinay kadib waxa weeyaan ay weydiiyeen intay u yimaadeen markay shay kasta kula daaleen ay ugu taageli waayeen waxba way ka tari weydii war cid wax garanayso arrintan cilmi u leeyahay meedin ku jirta nin saxaabi baa yiraahdaa garanaya faatixadu ku akhriyay waxa weeyaan xoolana way kaga qaateen nabiga calayhi salaatu wasalaam inta muran saxaabada yar dhex maray arrinta sharciyeynteeda ay nabiga ula tageen nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa u sharciyeeyay asayeeshee waxa weeyaan mar walba waxaan meesha ka marnayn qofkii wuxuu awoodayo iyo tankiisa inaan la dhaafinin oo qofka waxa weeyaan intii uu heli karo laga qaado qofkana aan waxba la xiriirin kalaamka Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan lagu gurgurtamin oo la eedan inta waxa weeyaan bixi haduu qofku yiraahdo ma haysta waxaasan bixinaya inaad ka qaado wasaaradda awqaaftii diinta ma diiwaan gelisaa goobaha quraanka kariimka dadka lagu daweeyo bismillaah kulliha way jirtaa anigu markaas kanaan joogo wuxuu ka furan yahay magaalada Burco gobolka Togdheer buu ka furan yahay waxa weeyaan sharci baan ka haystaa anigu kulli khaasatan wasaaradda awqaafta وكذلك waxa weeyaan wasaaradda iyaduna waxa weeyaan caafimaadka iyadana waanu ka haysanaa sharciyeynteedii iyo noo ogolaadeen imtixaan dheer markay namariyeen kadib sidaas ayaan waxa weeyaan markaa ku hawlgalnaa insha Allah ma jirta sheekh jaamaca fariin aad u dirayso bulshada islaamka ah ee ku daawanaysa oo isku daweynta quraanka kariimka ku saabsan ummadda waxa weeyaan fariinta aan u dirayaa waxa weeye war Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa wax ka qaalisan ma jiro kitaabka Ilaahay horta waxaan u sheegayaa marka hore qofka cid ka xigta inaanay jirin isagu isku akhriyi karo waqti awqaad gaar baa laga yaabaa inaanu qofku waxa weeye aanu akhriyi karin quraankii marka ummadda waxaan ugu baaqayaa horta kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala in loo soo noqdo marka hore qofkuna inta waxa weeyaan quraanka isagu u jiro ayaa dawadiisuna waxa weeyaan ay u jirtaa marka nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa inoo sheegay xadiiskii waxa weeyaan Bukhariga ku sugnaa ee Abu Hurayra uu warinayay ma anzala Allahu da'an illa anzala lahu shifaa Ilaahay waxa weeyaan xanuun ma soo rogin dawadiisana waa soo rogay wixii shariicada khilaafsanna waxa weeyaan waa laga tagay la isku daweyn maayo alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila arinta waxa weeyaan dad cilmi u lehina waa jiraan oo garanaya dad badan oo jahli kaga sugan oo aan garanayna waxa weeyaan way jiraan ummadda waxaan leeyahay war quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa dawo Ilaahay baa inoo tilmaamay وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين إلهي بات المامي القرآن كينو دويهاي waxaad ka mid tahay dadka macaamiisha ee ku xiran markaskan Dibur Rahmaan maxaad nooga sheegi kartaa Dibur Rahmaan ma san tahay waxaan kaaga sheegi karaa si fiican bay horta wax u daweeyaan waxaana ku daweeyaan kalaamka Ilaahay iyo sunnaha nabiga sallallahu alayhi wasallam dawo aad u fiican oo xagga sharciga iyo diinta ku salaysan ayay waxaan ku wari wax ku daweeyaan aad buu mahadsan yahay Jaamac Xuseen oo loo yaqaan Jaamac Wadaad oo ah maamulaha ama mulkiilaha markaska Dibur Rahmaan ee isku daweynta shariicada islaamka waxaan inta ku soo gabagabeynaa barnaamijka bandhiga TV-ga Universal qaybta magaalada Burco waxaan u mahad celinayaa saaxiibkay Nuure oo daadihiyaha barnaamijkan ama soo saaraha barnaamijka